بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن داوديش هودا مركز نقل حديدو سايدين بلان قادني إننا لجنة قرنكا soo gurno dadka Soomaaliyeed kuwii ugu tayada badan ayaan markasta balan inuu ahay maanta ninkan barbarkayga fadhiya cidii garanaysaana way garanaysaa intii aan garanayna Saciid Maxamed Cabdi Galgudud waa baashi orodka badneed ee xulka qaranka Soomaaliyeed iyo kooxdii horseed Saciid ka soo dhawow barta channelka YouTube oo bal maanta xogaa taariikh aanu dee intaad ka xasuusato kulli midday aan doonayno inaad ummadda bal u soo reebto dhalinyarada iyo intii kula joogtayna ay dareento intii aan hore ku aagno maanta ku barato bal adoo nooga soo bilaabay taariikhdaada iyo bilowgaagii kubadda maxaa ka xasuusta ما شاء الله ما هذا وما سنتهاي ما دام ما أنت هذا مرتقد إن هذا جوري ستو تاريخ نولد كي سبورتيجا ما شاء الله وعن ربع مركز إن مركز ورس هذه أنكم هالعليو هذا مدن تاريخ نولد كي سبورتيجا أنا قاعد ديان كشك مركز ورسي وعن كسب اللعبة أنا قاعد وأن كل شيء مقال لي هذا علبور وكترسن قلقلت معناها قبل بالجود البور هالكاسان كسب باللعبة مركا سبورتيجا مركا يرى هذا نجعله مجان البور نوحنا لأن يردي مركا وف فرعونات أو معناها كوبا عكتر هذا نجعله مركا واحد علي مركي دوكسي دحى البور عن جلاس كي تضبط سديدات أنا قد بي أي واحد علي إني عيارها قولها يلا قبل جري marka gobolka Galgaduud oo diyaarinaya caariyada gobolada ciyaartooyda qaranka markaas xulka ahayd ayaa waxay u yimaadeen magaalada Ceelbuur si ay ula ciyaaraan ciyaartooydiina Ceelbuur joogtay ardada ah ayagoo sameynayay degmooyinka ku wareegayay oo isu diyaarinayay inay ka qayb galaan ciyaarihii gobolada marka galabtaas aan la ciyaareynay xulkii مثالي لها Galgaduud ayaa waxaan aan ka raynaa naga labada gool oo aan uga raynaa ana dhaliyay way ma sha Allah markaas ayaa waxa dhacday in markii aan galaaska sideedaad dhameeyay oo aan waxaan aniga markaas ka jeclaa inaan xanaanada xoolaha iyo caafimaadka iyo waxa la qoran jiray marka waxa dhacday goolka ayaa la imaanay halkaas ardada lagu kala saarayay si dhameeyay galaaska sideedaad markaas ayaa waxaa dhacday in meesha isbaaro la dhigtay oo leeyahay ninkaas gobolka u baahan ma sii deynayno si uu ciyaaraha gobolada noogu ciyaaro marka waxaa la igu qasbay inaan dugsiga sare dhigto marka halka ayaan iskuulkayga ka bilowday galaaskii koowaad formonkii Dhuusamareeb ciyaarihii ugu horreeyay gobolada ayaa waxaa lagu qabtay Hiiraan oo aan ka qayb galay markaas anoo dugsiga sare ka dhiganayo Dhuusamareeb galaaskii formonkii anoo dhiganayo galaaskii koowaad dugsiyada sare oo gobolka Mathaley isla markiiba markii ugu horreysay aan ka qayb galay ciyaarihii Hiiraan lagu qabanayay ayaa ciyaarihii markay dhamaadeen waxaa jirta macallimiin ka timaada Muqdisho oo ciyaaraha fiirsada ciyaartooyda ugu fiican ee gobolada meeshan isugu yimid waxay ahaayeen adiga Nugaal oo ay hadda loo bixiyay adiga Garowe ay ahayd iyo Galgaduud Nugaal Galgaduud Mudug iyo Hiiraan afarteenaas ayaa ku ciyaarayna meesha halkaas isreeb way macnaha waxa waaye halkaas ayaa la isku reebay qoladii soo baxda oo gudbaysa banaadir lagu dheelayo marka ciyaarihii gobolada marka gobol walba wadanka kamid ah ayuu ka jiray in la soo reebo ka bacdina ciyaaraha lagu qabto marka banaadir lagu qabto marka macallimiin badan timid oo kooxihii Soomaaliya injineer kale horseed oo fiirsanaya ciyaartooyda fiican oo gobolada ku jirta halkaaba aniga waxaan jeclaa horseed markii horeba ataa iska si jeclaa ana horseed iska jeclaa marka waxa way injineer macallin ka socda yimid habeen meeshii aan deganeyn ayuu noogu yimid marka uu la sheekaystay wuxuu ka warramay marka waxaan ku weeriyay iyo macallin kale ay yimid marka labadoodii baan alternative waxaan siiyay inaan qaato horseed marka maxamed Fiolans ahaa macallinkii markaas aniga igu la taliyay inaan kooxda horseed ka mid noqdo sidii ayaan ku ogolaaday ka bacdina horseed ayaa imid horseed markaa imidna waxa macallinka ahaa nin Brazilian ahaa oo Mandar Moreira la dhihi jiray
aniga iyo wiil kale oo galgaduud oo dheedhi allah u naxariiste ayaa waxaan sameynay galbaha kamida macalinkii brazilianka ahaa oo Mander Murare la dhahayay ayaa wuxuu naga qaaday adiga tijaabo ahaan inuu macnaha go-aan ka gaaro labadeena ciyaartoy galabtii ciyaarihii waan ciyaarnay kooxdii Ziraa'ada ahayd Horseed oo laba qaybood ayaa lagu kala daray markiina meeshaas macalinku wuxuu yiri ninkan waa loo baahan yahay ciyaartoy fiican waa mustaqbal u leeyahay sidaas ayaan Horseed ku soo galay marka waan kooxdii Horseed uga mid noqday isla markii waxaa bilaabanayay junior macallin horta markaa waxaa Mander Murare markiiba uu baxay ayadoon ciyaarihii weli bilaaban killer ayaa macallin noo noqday killerna isla markiiba Garaara bedelay Garaar markuu bedelana ciyaarihii juniorka yimid Garaar marka wuxuu jeclaystay inuu iga faa'iideysto ciyaarihii juniorka marka intii dambe oo dhan macallin Soomaaliyeed hogaaminayay oo macallin Garaar la yiraahdo macallin Garaar marka wuxuu yiri juniorkan uga faa'iideysanayaa juniorkii bilowday juniorkii marka waxaa dhacday inaan aniga iyo Axmed Cali Culisow ciyaartoy ahaa oo dhaxda nooga ciyaarayay numberka 6 ayaa juniorka markay dhamaadeen ciyaarihii goboladana loo doortay inaan ka qayb galno labadeenaas isla markiina waxaa diiday macallinkeena Garaar ahaa oo yiri waxaan safanayaa General Daud Ziraa'adan ka dhigaya ciyaartoydan gobol ma isafanayaan annaga sida runtii gobolkan jecleen aniga Axmed Cali Culisow laakiin macallin qorshihiisu wuxuu macallin gobolka ka boodsiiyay inuu gobolka inaan gobolka u ciyaarin oo aan u ciyaari General Daudka habeenkii la dheeli jiray ciyaaraha General Daud inaan dheelno oo Ziraa'a uu naga dhigo ayuu go'aan ku gaaray annagana waxaan rabnay inaan gobolka dheelno ka bacdi aan markaas Ziraa'ada aan galno adiga macallinka awoodiisa socotay wasaaradda isboortiga iyo waxa isqabsaday naadiga Horseed inuu amara la siiyay markii dambe waxaa la yiri macallinka ciyaartoydiisa u dhaaf sidaasaan gobolka ku saagnay isla markiina General Daudka ayaan safarnay aniga iyo Axmed Cali Culisow kadib xilligaas waxay ahayd aan jeclahay dhammaad 79 dhammaadkiisii 80gina Ziraa'adii ayaan safarnay 79kii dhammaadkiisii adiga 80gii ahayd saan jeclahay juniorka markii aan ciyaaraynay kadibna General Daudkaan safarnay 81kii 82gina waxaa la ii magacaabay qaranka ayaa la igu daray qaranka ayaan ciyaaray ilaa 83 84 85 ayaan ciyaaraya aniga sida runtiina waxaan aniga halkan aan aad uga faa'iideysanayaa jaaniskan vankii Horseed ciidamada qalabka sida difoosayaashii aad ii jeclaa oo sida runtii waxaa weeye aan weligay marnaba aanan iloobi karin oo xataa guriga igu imaan jiray markii ay noqotay inaan ciyaaraha xoogaa waa iska taqaanaa aan ka caajiso aad macnaha ii jeclaa marka difoosayaasha halkaan ka salaamaya wixii nool wixii dhintana Allah u naxariisto adiga ciyaarihii 85kii markay ahayd ayaa waxaa dhacday markii inaan aado Sacuudi Carabiya intaynaan ka bixin Sacuudiga intiina kubadda ku guda jirno Sacuudi waxaad ka mid ahayd dadka markiiba ay dhaqso u soo galeen magacooda markiiba hawada tagay ciyaarahaadana muddada dhowrka sanadood ku jireen faa'iido badan magac iyo waxtar ba ka gaarsiiyay markii aad galguduud ka timid Muqdisho timid dad badan oo waxa jira sidaada gobolada laga soo qaato oo dhalinyarada maanta oo kale dalkeena uu burburayo in la garanayn dad badan waxay isweydiinayaan markii uu Sacuudi Horseed yimid xagga yimid reerkoodii sidii uga yimid dawladda awood iyo meel ay wax dejiso iyo lacag siin jirtay tolo ciyaaruhu bariga sidii ku dhisnaayeen meherkan caalamiga ah dadka guriyo iskiya la siiyay guriyo waaweyn bay wada deganaayeen bal dadka sidaas bal noloshaada isay noqotay ma lacag kuugu filan bal uu siiyay bal dadka bartaa u yeeshay هذا ما سنتهاي سؤال مهم هو سيد runtii aniga markii galguud laga qaatay oo aan Horseed ka mid naadiga Horseed wuxuu ahaa naadiga ugu fiican naadiyada wadanka ka jiray kor waxa ka xukumay gaashaandhiga Cali Samatar ayaa kor ka haystay marka xero kama aysan bixi jirin aniga waxaan ku soo aaday ciyaartoyda ayagoo xareysan markii la qaadanayay oo isu diyaarinayay in ciyaaraha General Daudkii horyaalkii la ciyaaray marka ayaga inta badan xero kama aanan bixi jirin marka sidii ayaan xero waxay lahaayeen club weyn oo wax kasta u dhameystiran yihiin garoonkii leh basketballkii leh wax kasta marka jiifafkii leh baararkii leh
basketballkii wax kastaba marka kooxda barta ku xariisnaanaysaa bartaasi ku xaraasnaanaysaa sidaa baan marka aniga ciyaartooydii liila xareeyey marka dambe qof familigiisa iyo dadkiisa hadduu baahdo fasax buu ku tegay aad iyo aad waxa waaye waa lagu fasaxayaa laakiin inta markay ciyaaruhu socdaan fasax lama ogolo laakiin waa ay jirtaa markii la xariisan yahay waqtiyo laysu ogol yahay in qofku uu bixi karo laakiin markuu qofku baxayo markii xerada lagu jiro waa inuu macalinka ogeysiiyaa uu dan leeyahay ama uu rabo inuu gurigiisii ama faamilkiisii inuu u tago laakiin waqtiyo international oo caalami oo la og yahay waqtigii fasaxii hebel baa soo socda way jireen waa ay jireen ha waqtidaas waa ay jireen kooxihii markaasi beriga 1980 ilaa 1970 waa run kooxda horseed waxay ahayd horyaalkii qaranka kooxaha Soomaaliya kooxihii ugu soo dhadhawaabay markaas caabinta faraha badan idinka dhacaysay aad iyo aad sida runtii waxa weeye kooxuhu waxa weeye inta badan kooxihii aniga aan tilmaami karo waxay ahaayeen Fiat iyo madbacadda iyo Municipio iyo Jane ya marka afartaas kooxood sida runtii khaasatan aniga tiimkii horseed sida runtii aad iyo aad markaan ciyaariyay de waxa waaye waa in runta isboortiga laga sheego waa muhiim waaye kooxdii waxay ahayd Fiat ayay ahayd kooxdii horseed caabin jirtay inta badan aad iyo aad la dhihi jiray kooxdaasi horseed waa ay ka laki badan waa ay ka nasiib badan tahay laakiin kooxaha kale madbacadda iyo Municipio iyo Jane iyo waxa waaye iyaguna kooxa adag ay ahaayeen marka de inta aan ka tilmaami karo waxool iyo waa ay jireen laakiin aniga haddii aad qaar tilmaan dhahday waa madbacadda iyo Municipio maya kulley kubadda cagta dad badan oo difaacayaal iyo dad badan oo joog ahayo imanka qaar ku daawanayaan qaarna looga markhaati furayaa way jireen su-aashaan ku weydiinayana waa su-aal aad iyo jeer qofku biniaadamkii kubad kasta adduunka ka jirta aad iyo aad laba kooxood oo meel isugu yimaadaba koox baa jirta ku adag ama mar walba horyaalka labada kooxood wana tuu kala galaan isku iriidaan ciyaartooda ciyaarayaan ciyaaraha kale ay ka duwan tahay olay maanta heblaye ciyaarayo tarbuunka dhan iyo garoonka dhan buu buuxsamay aad iyo aad labadaas kooxood reality-ga iyaguna way Fiat iyo horseed bay ahaayeen waqtiyadaasi Fiat iyo horseed macnaha waxaan kaaga wadaa dadka waxay aad u jeclaayeen ama garoonku aad soo buuxsami jiray markay ciyaarayeen Jane iyo horseed laakiin aniga waxaan ka hadlay kooxdii ugu adkeed oo horseed macnaha markaan u ciyaarayay aad iyo aad ay horseed galabta la ciyaarayeen waxay ahayd kooxda Fiat ay ahayd Fiat markaasi kulli adigu sida dad badan garanayaan adiguna noo sheegtay waxaad ka mid ahayd gooldhaliyaasha ama kooxda dadkooda afka hore ka ciyaara mararkaad xanuunsanaysa mooyaan in badanna aan kaydka kursiga ciyaartooyada lagu bedelo aan nasiibka u yeelanee mar walba laf dhabartii kooxdaad ahayd runtaa wey ciyaaradu marka ciyaartaad kugu horreysay aad u ciyaarto kooxda aad dooratay aad u niidaad ka jaleed marka dambena aad ku guulaysatay inaad ka mid noqoto ee horseed ciyaarta kugu horreysay aad garoonka gashay qalbigaaga ma ku dhigantay ma xasuutaa aad iyo aad yaad la kulantay waxaan xusiistaa koox jowhar ka dhisan ay ahayd oo isna biyaasa la dhihi jiray kooxdaasi ahayd kooxdii ugu horreysay habeenkii ugu horreeyay siraada aan safanayay anigii Axmed Cali kooxdii aan la ciyaarnay kooxdaasi ahayd waqti cajiib ah waqti cajiib ah maba ilooba aniga kooxdaas waa habeenkii weliba habeenay ahayd istaadi Muqdisho oo markaa si fiican u dhisnaa oo waxay ahayd habeenkii la ciyaari jiray ciyaaraha marka kooxdaas ay ugu horreysay ciyaartooyda hadii jeer lambar xagga dambe kaga xidhan oo ay garankooda ku calaamadsan lambarkeed xambaarsanaan jirtay aniga nambarka 10 aan qaadan jiray laakiin nambar 10 kama dheeli jirin waxaan ka dheeli jiray aniga oo 7 ka ciyaari jiray inta badan markii lay baahdana mar nooba la igeen jiray 9 nambarka 9aad mar xataa nambarka 11aad laakiin nambarkayga caadiga oo ka ciyaari jiray wuxuu ahaa nambarka 7aad midigta ka soo laabay funaanada aan watay ilaa waagii ciyaari nambar 10 u ahaa xulka qaranka markii aad ka mid noqotay laftigiisa ma lambar 10 ka sidan jirtay xulka qaranka may xulka qaranka markii aan ka mid noqday waxa waaye nambarada 7 aan watay 7 la siinay koox ciyaartooydii markaa horseed aad ugu timid ee kaaga soo horreeyey maanta garoonka iyo ciyaarta koobaad baa kugu soo dhaweeyey wax ma ka xasuuta aad iyo aad waa ka xusuustaa ciyaartooydii hadda nool iyo kuwa dhintaba waa ay jireen inta dhimata Allah u naxariisto inta noolna halkaan ka salaamaya
waxaa kamid ahaa ciyaartooydaas ugu soo dhaweeyey cabdiladiif awees oo aan awees fundi ku magacaabi jirnay arbow awees arbow saciid ceerow shaarki cabdalla cabaas john fakri allah u naxariisto cumar gedo baasi shariif saciid allah u naxariisto markaa waxaa joogay adiga xusiistii waqti horaa laga soo tegay laakiin intaan hilmaamana iga raalli ahaada marka intaasaan ka xusi karaa insha allah kol qof bini aadan aate waxyaala badan waad hilmaamaysaa intaad xasuusto jiilaani khaliif shaash jiilaani khaliif jilaan iyo horseed bay ahaayeen horseeday ahaayeen shaash weliba waxaa weeye wuxuu ahaa ciyaartooygii halbowlaha uu ahaa horseed uu ahaa hadda jarmalku ku nool yahay halkaan ka salaamaya ninkaas 3 kabtan wadan jira oo taariikhdiisa dhan waa la garanaya marka shaash uu ahaa inkastoo uu shaash muddo badan ciyaaraha waana ugu imid asagoo waqtigii ugu horreeyay badan waana uga tegay asagii oo ilaa markiiba ciyaaray dabcan maadaama ciyaarahaas aynu soo sheegnay adoo yarna timid adoo yaroo weli aan ciyaaraha ka daalin ood ka tagtay aad iyo aad sababaad ciyaaraha uga tagtay adoo da-yaroo ciyaari karay maxaa kamid ah wallaahi waxaa kamid ahayd sidii runtii aniga historigeyga markaan ka sheekeeyo aad iyo aad halkaan waxaan uga salaamayaa difoosayaasha mar labaad horseed aad ii jeclaa aniga sida runtii waxaa weeye inay aad iyo aad dadka ugu nasiibka badanaan isku tirin karaa intii kubadda cagta ciyaarayeen soomaaliya ciyaartooyda ahaa marka waxaa jiray rag aan halkaan ka salaamayo maxamed faarax cismaan shuqaale oo maraykanka ku nool dhalinyaro waxay ahaayeen journalistii madaxweynaha iyo darawalkii madaxweynaha iyo ayay ahaayeen madaxtooyada aada ugu xiran raggaas ayaan aada saaxiib u ahayn oo ii imaan jiray waxay ii suurtageliyeen macnaha waxaa weye ciyaarteydana way jeclaadeen halkaasna waa difoosay u ahaayeen naadiga horseed maadaama ay ciidamada qalabka sida naadigu magaceeda uu xambaarsanaa marka way ii imaan jireen oo way kaxin jireen gaarilan cruiser 24 saac markay firaaqo leeyihiin baararkaas xaraf iyo gurgurta iyo meelahaasay gen jireen markii dambe waxaa dhacday in arrimo kale oo aan hadda xoogaa waxay inaan ka hadla aanan jeclayn inaan meelo ka wada hadalnay wixina ay ii suurtageliyeen bakaas shaqada qaranka waxaan macalin ka ahaa dugsiga sare holwadaag markaan shaqada qaranka faarax dacsi oo dastoorka ahaa aniga iyo mukhtaar cuti ciyaartooy ay dhahaan oo batroolka u dheelayay iyo allah u naxariistay daahir gacmi ay dhahaan saddexdiinaba waxaan macalin ka ahayn shaqada qaranka dugsiga sare holwadaag sare ayaan macalin ka ahayn marka calafkaa iska jira halkaasaa calafkeyga kasoo baxay dugsigaa sare dhexdiisa wayde dad badan masciid waxay ogsoon yihiin in adigoo ciyaaraha ugu fiican oo nin aada kubadda ugu wanaagsan oo taageero badan loo hayo adigoo yar inaad guursato oy guurkaasi u sababay inaad ciyaaraha dhaqso uga fadhiisato aad iyo aad waa midda hadda aan rabay inaan kuu soo wado gabadha ilaahay calafka igu daray dugsigaa sare holwadaag ayaan maiska baranay maasha allah marka waxaa dhacday nimankan dhalinyarada ah oo madaxtooyadu shaqaynayay inay wax kasta ii ballan qaadeen iina fuliyeen ii sameeyeen hadday noqon lahayd agabkii aan ku aroosi lahaa oo kumbuleed ah iyo qarashka arooska ku baxay iyo micnaha guriga alaabtii la dhigay wixii oo dhan inay ii sameeyeen ciyaartooy khaasa madaxtooyada toosa ku xidhan gooni waxaa weeye maxamed caasi hadduu maqlayo walaalkii halkaan ka salaamaya markii nasuuka in dambeysay nairobi ayaan ku wada xiriiri jirnay kabacdina muddadan dambe xiriirkiisa waa aan waayey waa ninkii qalabka ii gaday oo arooskaan ku aroosiyey dhalinyaradan kale oo madaxtooyada cismaan shuqaale iyo maxamed faarax iyo faarax siig iyana waxay ahaayeen dadkii micnaha waxaa waaye abaabulka arooska iyo markaas waxay ahayd 85 markii aan arooskaygu dhacay سعيدو طبعا تاغريش انغو وصل نقون دونا بالوايهاغي markaad xulka qaranka aad noqotay u soo noqon doona waxa jirtay marad ku yahan ciyaaraha ka fadhiisatay Sacuudiga tagtay soo noqotay in lagu xiray arrintaasi baleed dadweynayaasha waliba lagu xiray maxaa ciyaari weeyday arrintaas waxay ahayd in Sacuudi Carabiya ayaan aaday 85 marka ciyaaraha ka tagay Sacuudiga hal sano ku maqnaa waxaan soo laabtay bilowgii 86 ayaan soo laabtay 1986 ayaan soo laabtay markii aan soo laabtay
oo aan xamar imid ayaga ka war heleen horseed inaan soo noqday markaas ayaa waxaa ii yimid niman odayaal ah ii yimid oo difoosyaasha horseed ka mid ahaa guriga iigu yimid waxay dhaheen Siciido waa timid waana la soconaa waxaan rabnaa inaad cayaari dib ugu soo laabato oo aad macnaha naadiga aad dib ugu dheeshid waxaan kale oon ku ballan qaadaynaa aleeri inta aan maqneed sanadkii mushaarkaagii inaan ku siino oo kumbuleed ah waxaana ballan qaaday allah u naxariistee dhakhtar naadiga deganaa dhexdiisa oo dhakhtarka ciyaartooyda ahaa Axmed Hodan la dhihi jiray waan yeelay waana ogolaaday naadiga ayaan kusoo biray markaas marka waxay ku jireen xalane xera ah ayaana la geeyey 3 ciyaarood ayaan ciyaaray kabacdi xalana waana la ka qaaday Kismaayaana la geeyey Kismaayo waxaan ku maqnay 2 asbuuc oon training kusoo sameynaynin waa 86 bilowgiisi wey haddana xalanaan kusoo laabanay adiga 3 ciyaaroodaan ciyaaray ciyaartii ugu dambeysay oon jeen la ciyaaraynay anaa goolka ka dhaliyay laakiin guduudaa la isiiyey galabtaas yaryaroo allah u naxariiste rabiic la yiraahdo ayaa xoogaa dhibay markaasuu madaxa iga tanta iga jijiidano difaac buu ahaa marka xoogaa waxaa ciyaartii waa iska taqaanaa gacanta fiira camal aan macnaha ku dhuftay oo tinta markuu iga jiiday refriga ay arkay ciyaartina way dhamaaragtaa markaas guduudaa la isiiyey guduudkaan ku tegay marka aniga markii horseed iigu dambeysay waa baxay waxaan aaday Kenya mataana ka tiino dad badan garanaya ciyaartooygii labarka tobnaad xulka Faransiiska sanadiin sidaan guduudka marka ciyaarta Talyaaniga dib u soo laaban guduudkaas markii la isiiyey ayaan marka aniga xoogaa lacag aan ganacsi yar oo daawooyinkii waxaasaan Nairobi ka keeni jiray Nairobi aan aaday waxaan bilaabay inaan daawooyin iyo waxa aan keeno farmashiyaasha xarumaha xulka qaranka Soomaaliya ku noqonaa wadiga kooxdii u dheelayay horseed kulley dabcan kooxaha hoolka koobaad baa qaranka laga soo xiranayay sidee baad ku timaad xulka qaranka Soomaaliya xulka qaranka waxaan ku imid aniga markii aan juniorka u ciyaaray anigii Axmed Cali Culisow oo dhamaaday juniorka labada ciyaartooy horseed inay gobolka u ciyaaraan laga xusho ayaan ahayn macnaha waxaa weeye taasaa suurtagelisay kabacdina uu macalinkeeni diiday uu yiri Serie A aan safanaya ciyaartooy oo baahan isla markiina Serie A aan saftay goolna waan ka dhaliyay juniorkii oo macnaha ciyaartooyda meesha ku soo caan baxday ay saasay ahayd markii aan Serie A soo galay ciyaartooyda kor u sii kacday sababtaas ayaa kaliftay marka degdeg lagu dafo in aan qaranka la ii magacaabo 82gii aniga iyo rag badan oo halkaan aan ka xusayo sanadkaas oo aan xusisto Daysane Boorka Xasan Yare oo fiyaad u ciyaaray Daysan oo Badroolka u ciyaaray Boorka oo xool u ciyaaray aniga shalay ahayd wixii la soo reebay oo sanadkaa qaranka lagu daray markaas shantii markaas xulka qaranka tababaraya u tagtay marka xulka qaranka markii istaag Muqdisho lagu xareeyay marka ciyaartooy la reebi jiray jirtay ciyaartooy badan la soo qaatay laakiin wasaaradda isboortiga dadka socda imaan jiray marka habeenba dad bay ka bixin jireen hotelka oo ay dhigi jireen hotelka adiga waxa waaye go'aan ah yimid inaad macnaha ka harto marka anaga shanteena saasaa markaan ciyaartooydii hore waa jirtaa oo qaranka hore loo magacaabay laakiin mar walba ciyaartooy cusub dib la soo qaataa oo qaranka loo soo qaataa marka shanteenaasaa markii dambe baxnay ciyaarihii lagu qabanayay Kenya lagu qabanayay qarankii ugu horreysay oo aan ka qayb galno waxaan koobka Afrika ah mise Israa'iilka koobka adduunka waxaad ciyaaraysaa wallahi wuxuu ahaa kii adduunka u ahaa marka gruubyo Kenya dhowr wadana ku ciyaaraysay Mombasana anaga waxaan ku jirnay gruubkii Mombasa ku dheelay marka gruubka Mombasa ku dheelay yaa kamid ahaa dalalkay wuxuu ahaa Zanzibar iyo Malawi Soomaaliya iyo Burundi taasaan ku ciyaaray dhinaca kalena Uganda iyo Kenya iyo wallahi maskax ma jirto iyo ko adiga waxaa afar kale ku dheelaysaa xagga ciyaartii ku guursatay xulka qaranka Soomaaliyeed garankiisa xirtay maxaa soo tahay Zanzibar macquul ah oo suurtagalnay may laakiin saaxiibkay halkaan ka xusayo ayaa gool wuxuu ka dhaliyay maasha Allah Khaliif
rico ay dhahaan oo badda u dheelayay oo laga qaatay oo shanteena qaranka markaas kamid ahayd khaliif riika halkaan ka salaamaya hadduu dhegeysanaya ama arkayo sheekada laakiin xiritaankeygii kuma dhammaynin habkii laygu xiray aniga markii cayaaraha tii oo aan sacuudiya kasoo laabtay oo aan ka tegey oo guduudka la isiinayay oon micnaha markaas aan isu bedelay ganacsi inaan daawooyin iyo waxyaalaha keeno anigoo sidaa ku jira naadiga iga war heleen inaan Kenya tago kana soo laabto adigu maalintii dambe waxaa dhacday shareeco ayaa naadiga haystay allah naxariistay axmed nuur shareeco hogaanka siyaasadda iyo isboortiga ayuu isku haystay marka adiga hoos baa la iiga daray oo waxaa la yiri ninkii Saciid Galguduud uu yimid waa Kenya meelahaasuna aadaa naadigana wuu isaga tegay markaas aniga ma ahayn askari mogta shibilan ahaa shibil horseedna waxaa u badan dadka shibilka ah marka qasab ma lagu lahayn oo kulliba nolostadaas iga haystaan bis ay ii diidi karaan laakiin qasab ma aysan ugu lahayn adiga waxaa dhacday habeenkii dambe in la soo weeraro oo ciidan iyo awood gurigeyga laygu yimaado gaari laygu qaado habeenkii subaxin la ii geeyo shareeco xafiiskiisii shareecana uu yidhaahdo maxaad allah u naxariistay oo ciyaarweysanbreyga aada uga baxday waxaa iri aniga nin shiblan ahaa iri mushaarka aan qaatanay uguma filna iri xaasna waa leeyahay caruurna waa ii soo socotaa maasha allah markaas xaaskeyga waa ay dhali rabtay uurbeedahay marka waxaa iri aniga dee lacag aan baroniga aan ka qaato oo igu filan oo aan ku dabarto nolosheyda ma ii suurtageli karto marka taas ay ugu kaliftay haddaa lacag fiican oo NF siinaysiin okay waxaas waa dabdar yiri waa ninkaan la xiraa waa kibir badan yahay adiga hangish meel yaraa lagu xiray oo furdada hore agteeda ku taal 15 maalmood aan ku xirnaa wuxuu iga gudbiyey inaan ahay tiftif oo aan micnaha warka u kala qaaday Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ahaa waxaa loo gudbiyey micnaha meeshii dambe baarista madax badan oo aan ka maqashay 15 bari marka waxaan ku jiray mar haddii loo gudbiyo xiraarinta guud ee qaranka qoraal loo gudbiyo oo leeyahay ninkaasi waa saas oo waxa waaye wuxuu ka shaqeeyaa warka u kala waa dhibaato wey ma soo noqon karto wax soo celin karana ma jiro mar haddii xiraarin tagto madax badanaa sheekadii maqashay igu yimid xataa hangish meeshii aan ku xirnaa oo ay dhaheen dul qaado arrintaana rabnaa inaan saan ku tirtirno qalad weyn baa dhacay xeer ilaalinta adigu 15 bari saasan meesha ugu jiray adiga markii uu la soo dhameeyay oo lagu yiri shareecana waxaan macquul ma ahna leeyahay in nin la yaqaan taariikhdiisa histories meeshuu ka yimid waxa uu yahay inaad maanta tiraahdo Saciid Galguduud wuxuu ka shaqeeyaa warka uu kala gudbiyaa laba wadan Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya wax macquul ma aha leeyahay waxaan aqoontaa waa qalad gudbis xiraalinta adigu markii dambe xiraalintii waa laga dhameeyay warqadda la kansalo maalinta dambe la soo daayay waxaa la ii keenay xafiiskii shareeca subaxi dambe gaari lagu soo qaaday la ii keenay marka xabsiga aan ka soo baxay hangishtii laga soo kixiyay meeshaan galay aduu xoogaa uu ii indagaduudiyey wuxuu yiri haddii naadiga aad tegi weyso galabtaba aad alamintada bilaabi weyso aad ka qaybgeli weyso meeshaan kuu celina marka horaa dad iila hadleen ay dhaheen wax kasta haa iska dheh hayaan iska dhahay sidii lagu soo daayay gurigeygan iska aaday dib dambana uguma laaban markaasaa leeyahay wax dambe soo raadsadana ma jirin kubaddana markaasaa igu dambeysanahay 1996 marka waqtigii aan ciyaarayo dhanba waa ciyaareed dadku waxay u haystaan inaan waqti badan ciyaarayay laakiin waxaa jirtay ciyaartoy aan ugu imid naadiga horseed oo badan oo ayagii weli dheeliyana aan uga tegay way daawadayaasha aad iyo aad bartan ugu xidhan waxaan waqtigiisa qaaliga uga mahad celinaynaa Saciid Maxamed Cabdi Galguduud oo ahaa nin aad iyo aad looga yaqaan xulka qaranka Soomaaliya legendska Soomaaliyeed kamid ah bal waayihiisa qurbaha dalka Sweden magaalada Malmö ku nooliyay dalal badan oo qurbaha u tagay